dadku ka aflaxaanu daabaca tacliin taariikh dalaga iyo beeraha kayaambada u taabto dhaqaalaha durkinayaale dhaqaalaha durkinayaale كندتشي أبونتو تدكو كأفلحانو تابع تعليم تالي دلقا إيا بيرا كيام بدو تابتو تركنا يالي نقرا تركنا يالي waxaa dhacday marka Puntland goboladaas dadka Puntland dega kacaanku si gaar ah ayuu wuxuu ugu eedeeyay inqilaabkii inay iyagu wateen inqilaabkii weynaayo ma garanaysaa jabhaduhuba ka furmeen oo ka bilowdeen markii dambe oo 1978 marka oo ciidamada Soomaaliyeed saraakiishoodu ku dhamaayeen inta badan ku jirtay ayuu reereeyay asagoo uladan leh gobolada Puntland ka soo jeeda inuu maaragtay si gaar ah u beegsado dadka ku dhaqan iyo waxgalkooda iyo siyaasigooda iyo neergaradkooda waxa xabis buuna ku bilaabay iyo xirxir iyo dagaal iyo dumin iyo in magaalooyinkii la gubo taas oo magaalo baa la gubay oo barkadii la qarxiyay oo haweenkii la kufsaday oo wax xun oo dhan baa lagu la kacay dadkii markaa jabhad bay noqdeen way dagaalameen haddii Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa cadawgaagu waa qofkii ku dila mar haddii magaalooyinkiina la gubayo haweenkiina la kufsanayo raggiina la laynayo dadkaasu inay dagaalamaan waa ku khasban yihiin markaa arrintii waa laga leexshay arrin siyaasad iyo siyaasiyiin ka dhaxayso shacabkii baa dagaal dawladdu la gashay shacabkii dadweynihii baa ay dadkii inay maaragtay sidaa u gasho magaalooyinkii ka gubto barkadihii biyaha iyo ceelashii ka xabaasho ka qarxiso oo maaragtay miino lagu xiro gabdhihii la kufsado iyo hooyooyinkii raggii la laayo wax xabsi lagu dilay iyo wax batoos lagu dilaba ceebta ay foolxumadaas ay faraha la gashay dawladii kacaanku maaragtay dadka Puntland ka soo jeeda marka waxay qaateen qoriga waana dagaalameen dagaalkaasi ma badaminba markii dambe waqooyi baa kacay oo iyaguna SNM furtay jabhada SDF baa maaragtay ay dadka gobolada Puntland ka soo jeeda markii uu horeeyay jabhadaas samaysantay dabadeed SNM baa maaragtay ku xigsatay iyaduna waqooyi baa kacday dabadeed USC baa ku xigsatay SBM baa ku xigsatay sidaasay kulli madankii oo dhan jabhada ku fideen haddaba waxa xusid mudan goboladaas Puntland ay maaragtay ku taal oo dadka Puntland dega ku abtirsanaya ay degan yihiin waagii hore iyo Soomaaliya oo dhanba caasimadda xageeda la aaday xamar iyo koonfur baa la aaday goboladaas dhul laga tagay bay ahaayeen reermiyi iyo dad yar oo tuulooyin jooga maaheen dadku waxay haysteen xamar bay la aadeen aqoontii xamar bay jirtay dalkuba xamar buu ahaa Soomaaliya oo dhanba awooduba xamar bay ahayd dabadeed dagaalkii sokeeye wuxuu keenay in xamar dagaalkii markuu ka bilowday aan loo kala aabayeelin dadkii dawladdu la diriraysay muddada dheer iyo dadkii ma garanaysaa dawladda la shaqeynayay iyo ciidan iyo cidna in la yiraahdo reehebel ma yahay reehebel u dil baa bilaabatay reehebel u dil marka xasuuq xun baa ku dhacay dadkii xamar joogay haba ugu darnaadeen dadka gobolada Puntland ka soo jeeda dadka ku nool ama dadkii ku abtirsanaya ha ugu darnaadeen oo guuray oo xamar wada jiray xoogoodu xamar jiray dadkaas xasuuq baa ku dhacay daran oo aan Soomaali ula sinayn baa ku dhacay inkastoo hayb guud dadka loo ugaaranayay oo hayb guud dagaas civil war ka xamar ka dhacay wax fool xun ahaa dabadeedna reer xamarka dhexdoodii baa isku noqday oo iyagina islaayay waxa foosha xun baa dhacay waa lagu kala cararay wadankii koonfur iyo xamar waa lagu kala cararay Puntland waxa markaa isugu tagay meel laga kala tagay waa hore oo reer miyi ku rafaadsan joogan iyo dad tuulooyin baabacsan baa waxa fiigi wixana dibadda u carareen dadkii
puntland ka soo jeeday oo koonfur jiray waxna dibadaha ay u carareen waxna waa la laayay waxna iyagoo cayr ah oo la dhacay bay waxay ku noqdeen puntland ku noqdeen intii markaa puntland isugu timi dhulkaas gobolada isugu timi oo waqooyi bari baa la oran jiray ayaa muddadii hore oo dhan waxaa la isku dayay in Soomaali mar kale dib la isugu keeno oo Soomaali dib loo helo oo mar kale lagu istaago arintaas waxba badan kama suuro gelin fikir khaldan oo waxaa jiray civil war-ka la xiriira oo dadka Soomaaliyeed qaybo kamid ah in wadankaba laga tirtiro fikir sidaas qabaabaa jiray oo in markaa la heshiiyay in xal la isla gaaraba aan diyaar u ahayn baa jiray fikirkaasi wuxuu caqabad ku noqday marka in la isfahmayo in la heshiiyaba oo de qof doonayaba inuu meeshaba ka saaro dalkaba ka saaro ama ku dilo ama wadankaba ka saaro heshiisina isla qaadataan ma asaga diyaar u ceebtaasa taagneyd marka muddo dheer baa waxa la raadinayay waraynu Soomaali mar labaad isu keeno waa suuro gali weyday marka 91 markii ay burburkii xamar ka dhaco lagu kala firdhay waxay keentay 7 sano in la raadiyo oo gobolada dadka u dhashay Puntland ay raadiyaan Soomaali sidii mar kale la isugu keeni lahaa shirar tira badan oo dhowr iyo 10 gaar ayaa la qabtay shirkii ugu horeeyay Djibouti baa lagu qabtay shirkaas Djibouti lagu qabtay Cali Mahdi baa madaxweyne Soomaaliyeed maartay markaa laga dhigay waxba kuma hagaagin waxa ka horeeyay markii xamar qabtuba ka dhacdo lagu kala yaacay baa mar rag odayaal ah oo badan oo markaa xamar wada joogay intaan xamar lagu wada yaani istirsifayntu ka bilaaban yaa waxay yiraahdeen waraan xukuumad ku meel gaar oo degdeg ah la dhiso xukuumaddaasna Cali Mahdi baa madaxweyne looga dhigay ra'iisul wasaarana waxa laga dhigay Umar Carti Qaalib oo gobolada waqooyi ka soo jeeday dabadeed Umar Carti hadalkii ugu horeeyay oo ku khudbeeyay wuxuu noqday hubka Soomaaliya yaal wax alla wixii uu xagga waqooyi ahna haysu dhiibeen SNM hubka SNM ha lagu wareejiyo wax alla wixii xagga koonfureedana hubka US ha lagu wareejiyo Umar Carti sidaas khudbadii koowaad ku jeediyay xukuumaddaasi marka waxay noqotay xukuumad dagaalkii sii holcinaysa oo maaragtay aragti qaran aan maaragtay lahayn aragtida reer iyo qabiil ku shaqaynaysa noqotay mana sii socon lagamana yeelin inkasta oo maaragtay hubkii Soomaaliyaba labada jabhadood gacanta u galay oo kii waqooyina maaragtay SNM gacanta u galay hubkii Soomaaliya waqooyi yaale kii koonfureedna US gacanta u galay oo sidaba iska ahayd laakiin haddana halaysu dhiibadaas waa laga sii xanaaq waa laga sii carooday arinta waxba kama hagaagin dabadeed Djibouti baa la isugu tagay mar kale wax lagu waxeeyay wixii Djibouti ka soo baxay Cali Mahdi madaxda looga dhigay iyadana daawo ma dhalin waxba kama soo hagaagin oo dhibaato hor iyo dhiig hor leh oo ka dhaatay xamar gudaheeda ayaa ka dhashay dabadeed shirar badan baa la waday ilaa 19 ilaa laga soo gaaro shirkii soo dare oo aanu filayo inuu ahaa 97 soo dare baa markii ugu horeysay wax la isla aqbalay waxa soo dare meel la yiraahdo oo Itoobiya Addis Ababa u dhow waxa la isla aqbalay in shir Soomaaliyeedna la isugu yimaado markaasna waxa la isla dhisay guddi qaran ah oo maaragtay in ay shir Soomaaliyeed isugu yeeraan oo maaragtay Soomaali la isugu yimaado guddigaasina 5 nin oo meerta ah oo la gudoomiye ninka gudoomiyaha kan kale la gudoomiya loo baxshay 5 nin baa ka odayaalaha Soomaalina inay isugu yeeraan waxa lagu ballamay Boosaaso in gogasha la dhigo oo Soomaali shirkeeda ugu horeyso oo Soomaali isugu imaanayso Soomaali leedahay oo ajnabi maamulayn gogasha in Boosaaso la dhigo arinta iyada ah waa 97 arinta waxa ka masayrtay oo cag ku dhufatay iyadoo Soomaalidu isku raacday markii hore qolada waqooyi oo gaar u taagan mooyaane Soomaalida koonfureed waa isku raacday waxaan filayaa raggii arintaas 5 nin oo maartay jeer gareynayay arintaas oo guddiga sare u ahaa
waxay ahaayeen cabdulaahi yuusuf baan ka xasuustaa iyo ninkii la oran jiray caato iyo qanyare ma ku jiray waan u malaynayaa iyo aduu 5 nin oo sidaasay ahaayeen marka masar baa ka xanaaqday arrintaas oo arrin Ethiopia wadato u dareentay marka shir bay masar isla markiiba waxay ka qaban qaabisay qaahira in la isugu tago qaahira la isugu tagay shirkii qaahira la isugu oo lagu majaxaabinayo kii boosaaso ee lagu qaban lahaa qaahira markii la isugu tagay masar waxay shirkaas ku talisay in cali mahdi iyo xuseen caydi madaxweynaha ra'iisul wasaare laga dhigo sidaasay ku talisay masar marka dadkii gobolada Puntland ka soo jeeday oo marka waqooyi bari loo oran jiray iyo dadka iyaga la isirka aba arinta waa ay ka xanaaqeen waan lagu kala tagay shirka lama aqbalin waana lagu soo kala carooday Abdullaahi Yuusuf baa diidada u adag iyo aadan gabiyo baa arinta diiday ma aqbalayna yiraahdeen Abdullaahi marka safaarad ajnabi buu galay la fiisay intuu uga cabsaday in masar khatar geliso safaarad ajnabi buu galay safaaradda magaceeda iyo madaxeeda ayaa u suura gelisay inuu kaga soo baxo masar degdeg buu u yimi Puntland wuxuu ku dhawaaqay wax dambe aynu sugno ma jiraan aynu wax dhisano inagu marka aragti hore oo jirtay oo ahayd mar walba maamul Puntland la yiraahdo gobolada in laga dhiso ayuu Cabdullaahi dhaqaajiyay markaas aragtidaas markii hore miiska hoostiisa ku jirtay Soomaali horta aan ka quusan oo bali sukeenka ba la hormarinayay qoystii u dambeysay baa halka Cabdullaahi ka keenay marka ayaa waxa lagu dhawaaqay in la dhiso maamulka Puntland dabadeed laba shir baa la qabtay anigaygaan hadlayaa labada shir baa ergey baan ka ahaa labadaba shir la yiraahdo shirkii wada tashiga oo jabhadii ma garanaysaa SSDF ururka SSDF oo maxamed abshir markaa oday ka ahaa ayaa shirka maaragtay qabatay waana loo yeeray dadka gobolada dega oo dhan oo jabhadii labadii jabhadood oo kale oo gobolada ka jirayna shirka waa ka soo qayb galeen oo way ku jireen USB iyo jabhad kale oo maaragtay iyaduna goboladaas ahayd magaceed baan hadda yara liqsanahay raaliha layga ahaado waa lagu dhamaa shirkii wada tashigii waxa lagu heshiiyay in la dhisto maamul dabadeed si degdeg ah ayaa waxa loogu gudbay shirkii rasmiga ahaa oo maamulka lagu dhisayay waa 97 marka intii shirka aan ku jiray baan filayaa baa 98 noo soo gashay baa 98 noo soo gashay armay sida ahayd mise 98 bilowgeedii bay ahayd markaanu shirka wada tashiga 97 baan bilownay marka adigu waa un bilo gudahood bay ahayd shirkii labaad oo rasmiga ahaa oo in lagu dhiso maamul ahaa ayaa la qabtay shirkaasi waa noo hirgalay ergadii meesha isugu timi waxa qasdigu ahaa loomana kala maqnayn gobolada dadka ku abtirsanaya uma ay kala maqnayn waa ku dhamaayeen ama ha noqoto sanaag ama ha noqoto sool ama ha noqoto bari ama ha noqoto mudug ama ha noqoto nugaal ama ha noqoto gobolada dadka deegaa kulli waa ku dhamaayeen looma kala maqnayn shir laga siman yahay oo qolo maqan aysan jirin oo raali lagu wada yahay buu ahaa shirkaas Cabdullaahi Yuusuf baa madaxweyne ka noqday 3 sano ayuu ahaa muddada la siiyay 3 sano gudahood in maaragtay waxa lagu fakarayay arrin aan isleeyahay markii ma ay fududayn laakiin waa lagu taamay in doorasho 3 sano ka bacdi 3 sano gudaheeda lagu diyaariyo in maamulka ku xiga doorasho ku yimaado sidaas ergadu maaragtay ay ku heshiisay sidaas dastuurka lagu qoray hase yeeshee waxa jirtay tii hore oo la waday oo ahayd Soomaali hal baadi doono marka maamulka Cabdullaahi Yuusuf xoogiisa wuxuu isugu geeyay haddaynu inagu wax dhisanay aan Soomaali marka raadino Soomaali raadin baa marka la galay marka muddadii 3 sano ahayd hawsha Soomaali raadinta ah ayaa waqtiga badankiisa Cabdullaahi Yuusuf maamulkiisa ku baxsheen dabadeedna waa tii khaaxulku ka dhacay oo Puntland gudaheeda oo jaamac xilligiisii isqabadku waa tuu yimid oo Cabdullaahi inuu wax kororsado damcay kororsigii baa laga diiday waa tii la isku qabtay
waa tii maaragtay shaqaaqooyinku ka dhaceen shaqaaqooyinkaas dabadeed waa tii cadde iyo cabdulaahi arrintaas ay soo afjareen oo ka heshiiyeen dibna la isugu soo noqday oo khilaafkii meesha laga saaray عاصماتنا داوية عذكور درجة عذكاري دلتا وليدا هذه يماتنا إيمانك صدقاني